السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام يا صاحبال ومركلة يمقال عصوب مقال كنا ما نتوحن قال دونا أما نكشرع دونا سيدات فيسبوك استوريجا أما فيسبوك ستاتسكا وقسن كتير قفك الله لي قفك دونتي waxyaabo badan ayaad soo dhigtaa Facebook storygaaga oo aad kula wadaagtid dadka hadaba dadka qaar ayaa aanad rabin in ay arkaan waxyaabaha dadka la wadaagaysid amba aad kala dhacay sidaas aanad rabin in ay arkaan Facebook storygaaga hadaba sidee ayaad uga qarsan lahayd muuqaalkan aynu ku hal doonaa soo kale waxaan ku hal doonaa sidaad u ogaan lahayd maalinkaad storygaaga bilowday inaad wax soo dhigtay ama Facebook story wax soo dhigtay maalinkii ugu horeysay ilaa maanta dhammaan storygii waxa soo dhigaysay sidaad u arki lahayd dhammaantood iyo waxyaabo kale oo Facebook story ka saabsan ugu horeyn aynu guda galno muuqaalka Shifo official hadaba markaynu doonayno inaynu iska xidhno Facebook storygeena inta qof in dadka qaar ka qarsano Facebook storygeena waxaan soo furan doonaa applicationka Facebook oo ayna la'aantii waxba ka xidhi karin Facebook storygeena hadaba laba hab ayaad ku uga xidhi kartaa dadka ama aad ku tagi kartaa meesha rabna inuu uga xidhano dadka aan rabin Facebook storygaaga waa kan marka your story aad ka tagi doontaa habka koobaad waa haddii aad storygaaga wax soo dhigtay your story aad oran doontaa saddex yar dhibcood ee xagga yar sare ku yaala ku dhufan doontaa edit story settings aad ka tagi doontaa sidaas ayaad ku tagaysaa haddii aad Facebook storygaaga waxba soo dhigina waa hab kale oo aad iyo aad u fudud saddex dhibcood ee geestiga midiga la soo furan doontaa hoos ayaad u socon doontaa qaybta settings ku qoran tahay aad ka tagi doontaa settings waxyaabo badan aad iyo aad far badan buu ku siinayaa hoos ayaad iska socon doontaa halka privacy ku qoran tahay privacy settings aad ku dhufan doontaa hadda privacy settings kuna aad bay far badan tahay qaybta yar activity ee u sareysa halka ay ku qoran tahay who can see your histories aad ku dhufan doontaa hadaba halkan markaad timaadid amba sidii kale fududeyd ku imo amba dariiqadanba ku imo waxyaabo badan ay ku siinaya orta Facebook storyga wuxuu yaalayaa waa 24 hours amba 24 saacadood ah maalin iyo habeen hadaba sidaad uga qarsan lahayd halka u sareysa hadii aad public ka dhigatid waa qof walba ay arkaya ama kugu jiro aad friends ku tihiin ama qof aydan friends ku ahayn qof wal oo Facebook isticmaala wuu arkaya hadii aad friends ka dhigatidna waxa arkaya dadka friendska ama asxaabta ku tihiin dhanka iyo Facebook halkan customka oo qaybta saddexaad hadii aad ka dhigatid sida halka hoose ka qoranba waa no one amba marka doono hal qofina halkan hadaba halkanu doonana ama uga qarsan karno qofkanu doono waa halka ay ku qoran tahay hide history from halkaas aad ku dhufan doontaa halka wuxuu ku siinayaa dhammaanba dadka friendska tihiin qofka doontid magaciisa halkan aad ku qoran kartaa hadii kalena qaabkani ay u raadin kartaa qofkii markaad sin soo furatid iminka kan baa kale qofkii markaad soo furatid sax save kaliyata ayaad oran doontaa edit save iswaka iminka sidaas ayaad ugu qoratay ee uga qarsatay oo qofkaasi Facebook story wax aad soo dhigtay oo dambe marki doono hadaba hadii aad doonaysid inaad u furtidna mar labaad kiibaad ku noqon doontaa calaamadda kaliyata tigta ayaad ka qaad doontaa oo save ayaad oran doontaa marka sidaas ayaad ugu furasaa ogana xirsaa Facebook storygaaga dadka qaar inay arkaan hadaba halkan markaad soo togtid halkan waxaad ka arkaysan see all story settings ka dhamaanta ka tag doontaa halkan story privacy ku halkan ka imanay qaybta labaad waa sharing options qofka amba dadka share gareyn kara sidaad ugu xiran lahayd dadka storygaaga way share gareyn karaan oo storygaaga ku share gareyn karaan marka halkan allow ayaad soo oran doontaa oo don't allow markay tiraahin waa saasi ayaad uga xiraysaa inay share gareeyaan storygaaga dadka qaar qaybta saddexaad waa qaybta ugu muhiimsan ama qaybtan ku sheegay waa story archive hadaba waa kan save your stories automatically videos after December wuxuu si automatically kugu save gareyn doonaa dhammaanba waxyaabaha soo dhigtay oo dhan ayuu hal meer isku soo ururin doonaa halka dhammaantood oo dhan ayuu hal meer kugu kayn doonaa haddii aad halkaas ka xidhid
horta halka meerna waa archive oo kaliya ta adiga ayaa arkaya dhamaan in 24 saac markuu dadka kale uu ka qaadmaya marka halkaas waa inay ku furnaataa marka Facebook la soo degtid way ku furantaa automatically haddii aad iska xidid mooyaan hadda halkayaan ugu hagaaga amaan ka helaa dhammaan storiyadii aan soo dhigay maalinkan Facebook samaysteen story soo dhigay ilaa maanta waa iska soo wada baxmi doontaa marka iska soo baxmatid waxa soo furan doontaa profile-kaaga marka soo furatid saddexda dhibcood ee halkan yar oo ku yaala aad ka tag doontaa archive aad ka tag doontaa archive saad ka arkaysaa nimika hadii aad Facebook laftirkeeda sawirada aad soo dhigtid iyo waxyaabaha soo dhigtid ayaad ku soo archive gareyn kartaa oo imika hadii aan imika halkan sawirkan soo dhigay hadii saddexda dhibcood ee geeska midiga la taabto oo aan move to archive ka dhahdo wuxuu si automatically ugu beeri doonaa qaybta archive-ka saddexdan dhibcood ayaa kaliya ta soo Faransa archive ayaad ka tag doontaa oo waa kan Mohamed Shifo added a new photo haddii aad doonaysid inaad archive-ki ka celisidna kaliya ta saddexdan dhibcood ayaad ka tag doontaa restore to profile oo profile-kaaga ay ku noqon doonaa haddaba tan inagu dan ma lihin laakiin simka waxaan rabnaa sideen u ogaan lahayn history-geena dhammaan bay history archive-ki qaybtaas sare waxa ku qoran history archive iyo trash halkan history archive ay ku qoran tahay weeyaan halkan ku baana oo dhammaan waa kan inaad wuxuu tusaya dhammaan historyadii aan soo dhigay Facebook-gayga dhammaantood sababta way furnay iminka kana hadaan eego xitaa intii qof ee eegtay iminka 150 qof ayaa eegay intii qof ee eegtay ayuu ku tusi doonaa halkaas ayaad ka ogaanaysaa save to archive-kaasina inay ku furnaataa waa aad iyo aad muhiim hadaan ku noqono saddexdii dhibcood oo halka ka sii wadno halka ugu sareysa halka ugu hooseysa uguna dambaysa waa history you muted historiyada qaar dadka qaar ayaa soo dhiga historieskooga waxyaabo xun haddaba koogaana si iska qarin lahayn history qofkan ayaa tagaysaa saddexda dhibcood ayaad ka tag doontaa mute ayaa odhan doontaa markaad mute garaysid maalin dambe qofkaasi wuxuu soo dhigay marki doontiin oo waad iska xidhay historygiisa haddana markaad kay ku soo noqotid aad ka tagtid qaybtan ka tagtid halkan history mute-ka ayaad ku arki doontaa dhammaan dadka mute iska tiri ee history-googii iska qarisay haddii aad rabtid inaad aragtid inaad hadhow waad qofkii aragtid amba soo xishatidna unmute kaliya ta ayaad oran doontaa inaad aad iyo aad ugu faa'iideysanayaan filaya intaas aan kusoo googin doona muuqaalkeenan fadlan haddii aad tahay boqoshay ku subscribe saar video-guna like saar aad iyo aad baad mahadsantahay